haddii aan u gudubno kooxaha sida Liverpool oo kale Liverpool waxaan ognahay in qaab ciyaareedkeeda uu aad u hooseeyo oo weliba marka loo fiiriyo weerarkeeda gool dhalintii aad moodo inay ka haajirtay sidoo kale daafacana inay dhaawacyo iyo waxyaabahaas ay soo wajaheen marka ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Salah iyo dhanka daafac markay noqdaan Trent iyo Robertson iyo ciyaaryahanno noocaas oo FPL bulshada FPL aad u wada haystaan ayaa jiro maxaa is leedahay ma laga tanaasuli karaa mise waa lagu sii kalsoonaan karaa oo waxaa is leedahay isbedel ay samayn karaan maalmaha soo socda saa sheegtay Liverpool aad bay u hooseysaa dhanka difaaca ha noqoto dhanka weerarka ha noqoto waxaa dee tusaalaba kugu filanba sanadka cusub oo soo bilowday Liverpool gool ma aysan dhalin aad bay uga taalaa dibka intaas si dheer waxa weeye ciyaartooyda qaali weeye aad bay qaali u yihiin wana dhib badan tahay fantasy bilay qaali ah hadan dhibca aanan keenin si oo shaxda kuugu jiro aad bay u dhib badan tahay oo tababarayaasha aad bay u necab yihiin tusaalahaan oo kale hadda ninka fantasy ugu qaalisan ciyaartooyda fantasy ugu qaalisan waa Salah weeye oo Liverpool jooga waa 12.5 wali 12.6 uu ahaa uu soo dhacay 12.5 Salah shantii game u dambeysay waxa muusan keenin gamekii waxa ugu dambeysay Crystal Palace oo 16 uu keenayay 12.5 anagu hadda ninkaas uu jooga saxdu ugu jira waa xanuun ma keenayo dhibco lacag kala fadhiya waxa xusid mudan inay la ciyaarayaan Tottenham oo team aad u difaac adag oo Jose Mourinho u haysto teamkana ay ka taalo Liverpool guud ahaan West Ham oo aad u soo isku soo bedeshay soo improve gareysay ugu xigta Brighton kadibna Man City iyo Leicester ugu xiga waa ciyaaro adag markii dhan laga fiiriyo teamkana formkiisa ay ka taalo si fiican marka adi maxaa leedahay ciyaaryahanadaas waa mar walba waa riskigooda aad u badan yahay lacagtooda ay badan tahay marka inaad adi ahaan oo kale hadda Salah inaad ku tanaasusho miyaa qorsheynaysaa mise waxaa iska suurtagal ah in ay helaan formkoodii hadda Matip baa soo laabtay waxaa laga yaabaa inay isbedelaan oo Man United la ciyaarayaan caawa game aad u adag oo FA Cup marka waxaan siin rabaa waqti gameka Tottenham la sugi rabaa Tottenham kadibna West Ham labada ciyaar haday isku bedeli waaydo qaab ciyaareedka Liverpool waan iska gadi Salah oo waxaan ku raadsanayaa players oo qiimahooda wax ku keenaya waxa kale oo xusid mudan Dahirow hadda waxaan ka gudubnay double game week 19 waxa aad loo rajeynayaa inuu jiri doono double game 26 oo sida hadda kale ay jiri doonaan tiimam oo isbuuc dhexdiisa laba jeer ciyaara waxa aad lagu rajeynayaa Tottenham oo kale marka qofkii oo free hitkiisi ama qofkii oo bench boost ama free hitkiisa oo isticmaalay wild card kan aan rabin ku degdego waxa weeye game week 20 hadii hadhow la ciyaar rabo inuu hadda isku diyaariyo weeye marka suuq cancel lahaa ciyaartoydii dhibcaha badan u keenay double game 26 marka Salah oo kale qofkii Kenya haysan oo kale hadda uu ku soo bedelan karaa marka taana waa in iyadana loo xisaabtamo aad u maasantahay kooxaha ciyaartoyda hadda aad moodo in maadaama formka uu soo laabanayo kale waxa kamid ah Arsenal oo ilaa dhowr kulan oo xiriir hadda aan laga badinin markii la Premier League ayaguna ciyaarana aad mid iyo laba aad taaban karto ma jiraan Arsenal isbedel aad u weyn ku imaaday markii loo fiiriyo sida ku bilaabeen seasonka ciyaar u dambeeyay aad bay isku bedeleen gaar ahaan dhanka daafaca waxay Arsenal afar game isku xigta shabaqooda lagama taaban waxa weeyeen marka dhanka difaaca oo kale ninka la dhawtiyay waa waqti dheerna waa la haysan karaa markaad fiirsana weerarkana aad buu Arsenal u caawiyaa sababtoo ah gameka Crystal Palace kadib tababar Arteta uu hadlay wuxuu dhahay inkaas aad ba u tabnay marka waqti dheer xitaa waa la haysan karaa ninka Tierney dhaho Holding oo kale asna uu fiican yahay lacagtiisana ma badna waa 4.5 marka difaaca Arsenal oo kale waxaan aad u qiyaasayaa ninka loo jeedin inuu habboon yahay oonan waqti dheerna la haysan karo goolkiibaha Leno laftiisu waa uu fiican yahay
markaan sheegayo le Arsenal 4 jeer sabaq lagama tahay markaan leeyahay de ninka u weyn oo de goalkeeper ah goolhayaha waa asaga dhexda hadaa fiiriso ninka ugu qaalisan waxa weeye Aubameyang waa 12.4 way qiimihiisa gamekii Newcastle 2 gool u dhaliyay gamekii hadda FA Cup-kana waa ka maqnaa Southampton arrimo asaga u gaar oo shakhsiyad u maqnaa laakiin ani ahaantayda kuma degdeg lehna Aubameyang maadaama de aan hore u sheegay ninka haduu lacag saas u badan ama ciyaartoy lacag saas u badan haduu ku fadhiyo waa inuu ugu yaraan uu wax keeni karo marka waan sugi lahaa intuu ka bilaabay formkiisa waxaan aad uga doorbidi lahaa ninka la dhaho Saka oo kana lacag yar oo lacagtiisu waa 5.3 markii la dhaho dhibca keenidna aad uga fiicnaa Aubameyang horey markii la dhanka forward-yada Lacazette unba hadda laga dooran karaa weerarka Arsenal inkastoo labada game u dambeysay gamekii Newcastle iyo Crystal Palace uu waxba keenin laakiin inta wixii ka horeysay si fiican u ciyaaray dhibca fiican u keeniyay waxa laakiin xusid mudan in markaad fiiriso ciyaarahooda soo socda ay yihiin kuwo aan la fududeysan karin game-ka horeeyay Arsenal waa Southampton oo ay u aadayaan Southampton kadibna waa Man United oo aad u kacsan weli ba Emirates ku ciyaarayaan Wolves ku xigta Aston Villa kadibna waa Leeds ciyaarahaas markaa fiiriso ma sahlana marka ani hantada waan u yara kaadin lahaa Southampton iyo Man United markaa soo baxan kadib waan fiirin lahaa Arsenal inaan wax ka keensado laakiin qofkii hadda rajeynaya Arsenal inuu wax ka keensado wuu fiirin karaa playerska aan soo sheegnay aad u maasan tahay Muscab saaxiibada wali waxa xasuusinayaa in bogaga aan ku leenahay Facebookga Twitterka iyo Instagramkaba ay si joogto ah maalinle waliba ay idinla socodsiin doonaan xogaha la xiriira FPL-ka iyo beeca suuqa ciyaartoyda sida isku bedelayaan si maalinle ah ayaan idinkugu soo gudbinaynaa iyagoo qoraal ah saaxiibada marka waxaan xasuusinayaa in halkaas nagala socdaan bogga YouTube-ka ee haddana subscribe sar haddii aadan dhihin